الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الكويت waa dal carbeed oo ka mid ah wadamada dhaca jasiiratul carab wuxuu ku yaalaa koonfur galbeed qaaradda Aasiya si gaar ah dhanka waqooyi galbeed ee khaliijka carabta waqooyi galbeedna waxaa ka xiga wadanka Ciraaq ee dhulka Araafidayn halka koonfurna uu kaga beegan yahay dhulka Xarameynka ee uu ka taliyo maamulka Al Sacuud masaaxada guud ee uu dalkan ku fadhiyo waa 17818 kiiloomitir oo iskuweer ah dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 4.6 milyan oo ruux magaca al-Kuwait ayaana ka yimid lafdiga ah kuut oo looga jeedo dhufayska ama qalcadda sanadku markuu ahaa 1613 miilaadiyada ayaa la aasaasay magaalo madaxda dalkan oo loogu yeero al-Kuwait waxaana inta badan dadka ku nool dalkan ay horaan ku shaqaysan jireen mihnada qoositaanka iyo raadinta macaadinta ilaa laga soo gaaro sanadkii 1946 xilligaas oo dalka Kuwait uu bilaabay soo saarista shidaalka al-Kuwait ayaa ka mid ahaa imaaradihii ka madax bannaanaa dawladdii Cuthmaaniyiinta waxaana hoggaanka dalkan hayay qoyska Al Sabaax ee ilaa iyo hadda gacanta ku haya talada waddankaasi waxaana si qoyskan uu talada dalka gacanta ugu hayo uu heshiis difaac la saxiixday dawladda Ingiriiska taasoo si dadban u gumaysan jirtay waddanka 1961 ayuu dalka Kuwait gaaray xornimo ku sheegay ay qaateen dalal badan oo caalamka ka mid ah iyadoo uu ka baxay maxmiyadii ay ku haysatay boqortooyada Ingiriiska wuxuuna dalku noqday nidaam boqortooyo halka shacabka lagu qanciyay inay iyagu soo dooranayaan golayaasha waxa loogu yeero baarlamaanka ee dalkaasi marka dib loogu laabto taariikhda islaamka iyo muslimiinta wuxuu dhulkan ku yaala dalka Kuwait martigeliyay mid ka mid ah macaarigtii faasilada ahayd ee dhex martay muslimiinta iyo furus sanadku markuu ahaa 12kii hijriyada ayaa dhulka lagu magacaabo Kaadim ee dhaca xilligan gobolka Al-Jahraa ee dalka Kuwait oo magaalo madaxda caasimadda ah u jira 40 kiiloomitir waxaa ka dhacday macrakadii caanka ahayd ee Daatu Salaasil wuxuu dagaalkan ahaa mid ka mid ah futuuxaadkii waaweynaa ee muslimiintu ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ah Farisiyiinta ciidanka muslimiintana waxaa hogaaminayay saxaabiga jaliilka ah ee lagu magacaabo Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu halka furustana uu hogaaminayay Hurmuz jabka gaaray Farisiyiintii maamulayay Ciraaq iyo Iiraan ayaa horseeday in muslimiintu ay isku balaariyaan qaybo badan oo ka mid ah Ciraaq sidaasina ku noqdo dhul ay muslimiintu leeyihiin dadkoodana ay qaateen diinta islaamka dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa bilowgii qarnigii 20aad wuxuu dalka Kuwait ka mid ahaa meelihii ay la wareegeen qaraamidada oo dagaal kula jiray khilaafadii Cabbaasiyiinta muddo ayna ka talinayeen dhulkan burburkii qaraamidada kadib waxaa dalka Kuwait ka aasaasmay imaarado kala duwan oo qaab qabiil u dhisan boqortooyadii Hurmuz ayaa soo hunguriyeysay dhulkan taasoo maamuleysay 200 oo sano ilaa ugu dambeyntii ay dagaal ku kiciyeen Boortaqiiskii gumaysidoonka ahaa sanadku markuu ahaa 1507 miilaadiyada ay Boortaqiiska oo xilligaasi soo gaaray wadamo dhowr ah oo ka mid ah caalamka islaamka la wareegeen Kuwait reer Kuwait iyo muslimiinta Cumaan ayaana iska kaashaday dagaaladii ay isaga xureynayeen Boortaqiiska oo markii dambe guul ku soo dhamaaday marka loo yimaado taariikhda dhow 2 Agoosto 1990 miilaadiyada wuxuu hogaamiyihii bactiga ahaa ee Saddam Hussein ku soo duulay dalkan isagoo la wareegay magaalo madaxda dalka Kuwait iyo dhammaan magaalooyinka muhiimka ah nidaamka Saddam Hussein ayaa Kuwait u aqoonsaday gobolka 19aad ee dalka Ciraaq waxaana taliyihii ciidamada Ciraaq Aziz Saalax loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha maamulka Kuwait 7 bilood oo xiriir ah ayuu nidaamka Saddam ee Ciraaq xoog ku haystay dalka Kuwait ilaa ugu dambeyntii ay ka baxeen kadib markii uu bilowday dagaalkii labaad ee Khaliijka kaasoo Mareykanka iyo dawladaha Khaliijka ay la galeen dawladdii bactiga ee Ciraaq 2 Febraayo 1991 miilaadiyada ayaa dalka Kuwait laga saaray ciidamadii Ciraaq waxaana dib u howlgalay xukuumaddii Al Sabaax taasoo ka mid ah xukuumadaha sida dhow ugu daaban Mareykanka iyo guud ahaan reer galbeedka marka laga hadlayo gobolada dalkaasi Kuwait wuxuu ka kooban yahay ilaa 6 gobol kuwaasoo kala ah Al-Jahraa Al-Kuwait Al-Farawaaniyah Hawli Mubaarak Al-Kabiir
iyo gobolka al axmadi. gobolka al jahra ayaana ah gobolka ugu weyn marka laga hadlayo guud ahaan gobollada kuweyt. cimilo ahaan dalka kuweyt waa dhul saxaro ah waxaana aad ugu yar roobabka. wuxuu dhinaca kale dalkan ka mid yahay dalalka ay jasiirado dhowr ah ku yaalaan. كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله